shir jirayda goordhaweed magaalada Hargeysa ay si wada jir ugu wada qabteen gudoomiyaha ku meel gaadhka ee xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde iyo afayeenka xisbigaasi xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba ayaa waxay ganafka ku dhufteen hadallo ka soo yeedhay mas'uuliyiin ka tirsan xisbul xaakimka talada Somaliland haye kulmiye oo sheegay in xisbigoodu uu ilaa hadda ku gacan sareeyo tirada codadka hordhaca ee ka soo baxay doorashadii madaxtooyada ee 13 bisha November ee ku guda jirno gudaha Somaliland ka qabsoontay taasoo ay ku tilmaameen inay tahay qeyr sharci isla markaana ay tahay mid isaga horkeenaya shacabka Somaliland oo ay doonayeen xasiloonida dalka ka jirta ee khalkhal galiyaan waxa kale oo mahadnaqaynaa taageerayaasha xisbiga wadani ee sida mugale ugu codeeyay isbedelka waxaanu sheegaynaa dadweynaha in axsaabta iyo komishanku ku heshiiyeen inaan natiijada laga hordhicin waxaanu ka xunnahay in xisbiga kulmiye uu ishambaliyay annagu kama urursanin in dalkan isbedel ku imanayo oo isbedel khayr qaba ku imanayo kama urursanin ummaduna codkeedii way dhiibatay si mugle oo miisaan la ayay ugu codeysay isbedelka natiijadaas waxaanu la sugaynaa komishanka dhawaaqiisa waanu ka xunnahay in dadka la hiikiciyo oo heshiiskii la wada gaaray laga baxo oo xisbi si gaar ah soo hambaleeyo waxa kale oo ka xunnahay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye oo si qaawan oo anshaxa ka baxsan gudoomiyaha iyo gurigiisa uga sheegay waxaanu leenahay waxyaabaha qiimo rida process kan ku jiray tartan xalaal inuu galay gudoomiyaha xisbiga iyo musharaxu waa madaxweynaha mustaqbalka karaamo iyo wuxuu leeyahay sharaf marka waanu ka xunnahay anigana xaal ka bixinayaan ka rabtiga wahay ee gafka inta la galay taageerayaasha waxaanu sheegaynaa shaki kama qabno anagu guusha ee waxaanu la sugaynaa marka lagu dhawaaqo imaanu sugaynaa aanu u sii sheegno ama waxaan jirin aanu ugu baaqno nidhaahno sida kulmiye iskaga hadaaqayo guulaanu haynaaye guriyada kusii dhex dabaaldega waa arrin sharciyad u baahan in la mariyo hadalkaa ka soo baxay xisbiga kulmiye waa la wada ogyahay shacabka reer Somaliland inay u codeeyeen isbedel inay u codeeyeen annagoo ixtiraamna laakiin nidaamkii noo dejisan iyo sharcigaba sidii xisbi ahaanba awal bale nagu yaqaanay ilaalinta sharciga iyo ixtiraamkiisa annagoo dhowrayna ma jeclin inaanu ka hordhacno waxaanu haynaa natiijooyinkii ay soo ururiyeen xubnihii goobjoogayaasha ahaa ee xisbi walba uu dirsaday ee goobaha codbixinta ka dhacaysay goob walba natiijadeedii baanu gacanta ku haynaa mase jeclin inaan annagu gacantayda ku qaadano sharciyadda oo aan anagu wax isugu dhawaaqno ama aan wax sheegano waxaanu leenahay oo kulmiye ugu baaqaynaa oo u soo jeedinaynaa waa la ogaa intii ololuhu socday qaskii iyo fowdadii ay ka kicinayseen mujtamaca reer Somaliland iyo bulshada iyo isku durkii ay ka dhex wadeen ee dadka biseylka gaareen darteed ay idin dhaqaaqi waayeen waa la ogaa tallaabooyinkii foolxumada lahaa ee guriga gudoomiyaha ku soo weerarteen waa la ogaa tallaabadii foolxumada lahayd ee xubnaha xisbiga wadani u sarsareeya ololaha doorashada waday gacanka hadalkii ay u geysateen dhinaca kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay Xamsi Cabdiraxmaan Khayre madaxa ololaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo isaguna ka tibaax bixiyay fal ka dhacay magaalada Gabiley kaasoo sababay in ciidamada ammaanka ee Somaliland ay xabsiga u taxaabaan halkan aan ka ambabaxay markii sanadiiqdu ku soo xerootay Gabiley habeennimadii eedna wakiiladii noogu jiray meesha ayaa cabashooyin badan ka yimaadeen u galbaan sidoo la iga soo celiyay habeenkii maalinnimadii ayaan haddana ku noqday abaara 12 subaxnimo anigoo kaarkii ogolaanshaha gelista komishanka haysta ayaan askartii hor joogtay tusaanku yidhi waxaan wakiilka komishanka ee degmada Gabiley u qaabilsan xisbiga wadani marka laga yimaado inaan ahay gudoomiyihii Allah dabeedna wax kale ma odhan oo waa kana qabta bay yiraahdeen marka niman igu sii ballansan bay ahaayeen
soddon daqiiqaan meeshii ku xidhnaa saldhigana waxaan ugu tegey dad wadani taageersanoo kalabaydh degmada la yidhaha laga soo xidhxidhay maalintii codaynta laftooda lasoo qabto guddoomiye degmada kalabaydh ku jiro intaan meesha joognay ninka guutaalo la yidhaha taliyaha qaybta abaa markii horena gacantii geystay wuxuu igu yidhi xaal baan ku siinaya waxaan ku idhi nin xidhan xaal ma qaatay markaan xorriyaddeeda helo baan ama kaa qaadane ama kugu soo celini shir jaraa'id oo maanta iyaguna magaalada Hargeysa ay ku qabteen guddida doorashooyinka Soomaaliland ayaa uga digay axsaabta siyaasadda ee dalka inay ka hor dhacaan natiijada ay guddida doorashooyinka ay soo saari doonto iyadoona hadalkaasi maanta ka soo yeedhay guddida doorashooyinka ay dadafeeyeen mas'uuliyiinta xisbiga kulmiyo oo iyagu ku dhawaaqay natiijo aan ka soo bixin guddida doorashooyinka Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic